boqolaal kun oo muslimiinta Shiinaha ayaa suurtagal tahay ama malaayiinba in malyan ka badan yihiin in lagu hayo xarumo waaweyn iyagoo aan wax dambi ah galin oo aan dacwadna lagu soo oogin. BBC ayaa fursad naadir ah loo siiyay inay galaan dhismayaal qaarkood ku yaala gobolka galbeed ee Shenzhen. Shiinaha ayaa hore u diiday inay jiraan kaamamkaasi, laakiin hadda waxay ku adkaysanayaan inay yihiin iskuulo dadka wax lagu barayo si looga dagaalamo mayal adeega. waxaa soo jeedinaya warbixintan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. shiinuhu uu beenin jiray inay boqolaal kun oo muslimiina ku hayaan xarumahan waaweyn ee sida aadka ah loo ilaaliyo. laakiin iminka waxaana loo oggolaaday inaannu booqanno. fariintu maxay tahay? dadkani maaha maxaabiis, laakiin waa arday iyaga oo aan waxba ka qabin oggolaaday in maskaxda laga beddelo. waxaa la weyddiiyey in aan cidi soo khasbin. qolyo mayal adag ayaa helay. waxaan halkan u yimi inaan maskaxda ka saaro fikradahaasi adag. saraakiisha dawladda ayaa nagu weheliyey waraysi kasta oo aannu qaadno. kuwani waa muslimiinta Xinjiang, Uyghurs iyo Kazakhstanka, iyo dadyoga kale ee laga tirada badan yahay oo maskaxdooda la beddelayo. waxay baranayaan shuruucda Shiinaha ee xadida ku dhaqanka diinta, waxaanay ku beddelanayaan inay daacad u noqdaan dhaqan kale. waan jeclahay xasbiga shuuciga ee Shiinuhu, ayuu ninkani qoray. waxaa la weyddiiyey in meel aan dadku ka bixi karin ilaa loo oggolaadaa aanay ahayn xabsi, xataa haddii ay tahay jeel farshaxanka lagu samayn karo. ma fahmayo waxa aad ka waddo xabsi. xaqiiqdii halkani waa xarun tababar. sannadihii aynu soo dhaafnay xarumo badan ayaa laga dhisay gobolkan Xinjiang, laakiin xarunta aannu booqannay waayiradii ku wareegsanaa iyo qolalkii waardiyayaasha waa laga furay. meelihii lagu jimicsan jirayna waxaa laga dhigay garoomo lagu cayaaro si dadka booqanaya loogu siro. raqiima zembey oo iminka ku nool Kazakhstan ayaa BBC-da u sheegtay in loo xidhay oo keliya isticmaalka WhatsApp-ka. waxay la kulantay ciqaab iyo dhibaatooyin sida ay sheegtay markii lagu hayay xarumo dadka la geeyo oo halkani ka mid tahay. waxa ay sheegtay in muuqaalada farxadda ah la tuso saraakiisha iyo saxafiyiinta soo booqata. aniga ayaa la kulmay ka hor inta aan dadka dibadda soo booqan ayaana loo sheegi jiray in qofkii ka hadlaa xaqiiqada la geyn doono meel halkan ka daran. sababtaas ayaa qof kasta uu u sameeyaa waxa la faro oo ay ka mid yihiin jaaska iyo heesaha. waxaa la isweydiin karaa waxa ay dadkan saraakiisha u sheegeen ka hor intii aananu halkan soo gaadhin. dembi laguma helin, lama maxkamadayn. laakiin shiinuhu waxa uu aaminsan yahay inay go'aamin karaan dembi aanay gelin. dadka qaar inta aanay waxdilin calaamado muujinaya inay waxdili karaan ayaa lagu arkaa. miyaan sugnaa inta ay dembi gelayaan mise waannu ka hortagnaa? waxa aannu u sheegnay in dad badan oo xarumaha la keenay ay noo sheegeen ciqaab, dadka oo buuxdhaafiyey meesha iyo qoysas la kala qaybiyey. waxyaabahani ma aha wax laga hadlo. ta ugu muhiimsani waa in qof qarka u saaran dembi laga soo celiyo, bulshadana dib loogu celiyo. dadkani markaas waa dadaan dembi weli gelin, xidhan balcad. qolkiiba 10 ayay ku seexdaan oo waxa ay wadaagaan hal musqul. mana oga inta ay halkan ku sii jirayaan bilo amaba sannado. waxaannu isku dayn inaannu duubno xarumo ay weli ku yaallaan waayiradii ammaanka iyo qolalkii waardiyayaashuba. xarumahan waaweyne uma eka dugsiyo. waxaana noo muuqata in aanna la ka rabin. habeennimadii ayaannu soo noqonnay si aannu u dhegaysanno codadka fikradaha dadka oo la beddelayo. buuqa iyo qaylada oo habeenka la sii dumaya ayaa dareemaysaa.